بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا حسن محمود يسعيد درويش ومالين كلا يكون كلا وإنه شيكوين كي حلقي كسي ودونه شيكوين كسومالي وابط مرة ماذا هذا ما سمعت. حسن ورتا ما أنت برنامج كبارت توجي برنامج كي حكمة يحراوه بين بارت توجي سدوبنا واي برنامج كحنا كسر قادنا شيكوين marka maalin kasta saddex sheeko baan ku soo qaadanaa laakiin iyadana la gaarin baad ugu qoslaysaa warmay waa caadi sheekooyinkan soo wadan way xasan waxa la yiraahdo horta maalinta dhaweyto muuqaalka part 1 aan soo galinay dad badan baa sheekooyin soo diray marka 4-5 qof baa sheekooyin soo diray marka saddexdan sheeko ee maanta aan ku soo gudbin doono waxa la yiraahdaa mid baa waxay leedahay xasanow waxaan ku horeynayaa in la yiraahdo juxu شحوة مقشون ملنيا شحوي هراء عرب كهاي شكوين سلقة شكين جري ها مركز شكلًا شحي أنا هراء ما نهندي شكوين بدن بان هراء يقصوا جاريو شكلًا شحوي يقول عصبتها مركز أنا بحوي صدري بحوي شح أو يعني بقولك كريستا تقول لا حلا أنا بقولك نم بقولك كريستا ها مركز قولك سقف كيساسرة بحسن هو صنقراه oo qayliya oo sanqar bulay si fiican uma dhisna habay shay baa aroortii u yimid soo yiri ninkii baa xalay juxaa ninkii u yimid markaasuu ku warniyo gurigayga dhis aroortii oo dhan guriga uu qaylinaya habeenkii kama seexdo gurigayga iga baalkeeray inaad ninkii markaa waxa la yiraahdo meel fog bahada lagu raadinay wuxuu ku juxaa waan ku ogahay wax dhibana ma laha sababta uu guriga habeenkii oo dhan ilaahay uu tasbiixsanaya جحنا شكوين كل جوية قاعد نسيت سبب هذا الكمبيل فكمل هذه الشيء ما قلنا صح وأعرف بيروه حيان بقى لكن واحد كبق يا إنه محل أنت كب أنتوا خشوع إنه أنتوا كتر بطل إنه يقول سافر رصد يسد ما كبق يا يقول مركا شكله حكت الدين تولى سوق بنتي الأولى حقا حكمة الشكله كتيرتها بواحد هاي إنك كم مرة بدل محل الله أنت الدين ما هو يركب بدل ما قلنا صح وقاشان لقى دكتور sidoo kale waxa ku jirta inaan jawaabta qofka meel fog looga raadin adoo aan dagaalamin aan xanaaqin atiir qurux badan wax u fahansiiso shakada koobaad waa taa talabaadna waxa la yiraahdo nin oo shaka qaad xasan oo nin macallin qaylo oo macallimiinta waxa jira qaar iska qaylo iska laameeyo oo aroortiin iyagu dhafara saaxiisa ku kala garanaysa marka nin macallin oo waxa la yiraahdo qayla waxa la yiraahdo habeenkii oo dhan buu qaylayay aroortii wuxuu soo aaday galaaska uu xisada ku lahaa ka bacdi intuu miiskii u shisaa u dhigay oo labada lugood saa isu dul saaray baardada ku yeeray qofkii hal mar hadla 5 daqiiqadood baan ka jarayaa aamusa kursiga dib ugu seexday macallinkii markuu seexday cabaar markuu yara hurday buu soo toosay maamulihii hortaay iyo ardadii wada aamusan intuu soo toosay xeer xasanow إمك ما فهمتين في كلية قصة أصحاب الكهف هردده إمك ما فهمتين قصة أصحاب الكهف قال كل عسى مركب عقد جاي إنه هردده نبى أي كاهي 10 بحنا يوم قرنا تسوي سيد أصحاب الكهف سيد أصحاب الكهف وصحدين يوم جاي يوم قرنا ساعة مركب شوفين كقات هو بط حسنه وواحد اللي يلاحظه لكن تاني واحد غير دون تاي تيورا وكلام بكت حلق ضايو إن مارت هذا الكينا مرفق لقى هذه هذا أنا سحك ما ضيسن لو تشوف دايما كان نكاسي ما أنت عليها معلك إنك فكري ما منو إنك فكري إنك عرضة بحصة ما سي جلاس كثير لكن ما كانوا يري أصحاب الكهف قصدوا دي ورني كانوا يحلي إكسبيرينس واحد خبرت بقوليه على الأرض يا فاهم في عمك بحين ويا شيكوين كقاعد كورت قاعد بعجيبه عادي وأنا وح لو سومالي لو درصدي أو لو سومالي خريبي لغن كذي خريبي dadka Soomaalidu bariga hore dad sharaf leh ixtiraam leh bayahay xishooda laakiin intii bahalkaas yimid wuxuu keenay akhlaaqiyadkii buu khaldan aad sharaftii Soomaalida wax buu u dhiman marka sheekan kaaga sheekeynay horta aan aad baan waxaan ugu qoslay ninka la yiraahdo hore waran maruu ka sheekeeyay qisaska qaadka qaybo kamid oo aan ka maqlay qosol meelan bayahay haddaba waxa jirtay nin baa reerkiisa u soo safray dameer buu wataa dameerkii buu magaaladii keenay wuu waraabshay raashinkii uu reerka u qaadi lahaana waa soo iibshay dameerkii buu saaray dameerkii oo markaa in uu dhaqaajiyo amba bixiyo u dhow buu laba majood oo jaalaqa
makhaayad buu tegey uu fadhiistay halkaas uu fadhiistay ilmaha Wixiisii uu baraha. labadaa manjood buu kulkuliyey maantaba dameerkii uu iska ilaawo iyo wixii uu siday wixii buu iska ilaawo jawi kale u galay jawi kaluu gal aad iyo aad barqay ahayde maqribka ha bay ka dhamaadeen wuxuu de marba laan soo qaado marba dib u celiyo oo ma fahamtay kulkuliyo Aad oo iyo marba maro ku dhabaandhabo markii uu markaasuu horta miirsaday dabeedna ceelkii buu yimi dameerkii nasiib wanaag niman ay qaraabo ahaayeen ama xisu ahaayeen ayaa gartay oo kuwii baa kaxeeyey oo rarkii ka dejiyey oo dameerkii meel geeyey markan wuxuu yimi maqribkii buu ceelkii jooga dadkii carruurii dhaansanayay iyo wuxuu leeyahay wax dameer ah oo raran ma arag marka halkaa maxaynu ka garanay in uu bahalkani akhlaaqiyaadkii uu baabi'iyey xasanow horta sheekooyinkan xikmad iyo xaraabo waxaa la dadka waxaad madaan xiise gooniya u leeyihiin kolleyto dhammaan dee dadka daawanaya barnaamijkan waxay sheekooyin ahee xikmada ku jirto qosol la leh inay nala soo wadaagaan marka koowaad ay kuwantihaan nala soo wadaagaan waa ka codsananaa sida dadka horeba ay sameeyeen sidoo kale barteena facebooka iyo barteena youtube-ka oo labadaba ay ku qoran tahay Siciid Darwiish iyo sidoo kale youtube-ka Xasan Dhilood ay ku qoran tahay Xasan Dhilood oo isna la soo gelin doono inay subscribe-na youtube-yada saaraan facebook-na follow yiraahdaan muuqaaladana la gareeyaan baan ka codsananaa insha Allah intaan barnaamij la mid ah أنا كل مدونة إيه شيء كذا بارتي تريقة كان بارتي توجو هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.